أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلو ninkii ajnabiga ahaa gabadhii waa la siiyey wayna guursatay rabbina wuxuu ku irsaaqay laba wiil wayna naga guureen oo state-kii aanu joognay state kale ay isla aadeen waxa dhacday ninkii muddo ka bacdi walaashii waanu weynay aabka ay maaragtay u nooshay iyo warhaynteedii midna ninkii muddo markaan naga maqnay anigii oo maaragtay walaashay ku xigay ayaa waalidkay diray markaan ogaanay state ay ku nool yihiin waanu tegay muddo la soo noolaa walaashay aad iyo aad waxa indhahayga ilmada uga dhamaysay nolosha ay ku nooshay walaashay horta labadii wiil waa laga qaatay markii ay maaragtay iyadii saygeedii ku guuldareysteen inay suucan u farsadaan iyadiina daraaga dhabti buu ka dhigay ninkiina diintii buu ka noqday xaalad adag bay walaashay ku jirtaa oo runtii gurmad u baahan aan uga saarana ilaa hadda anagii go'aan adag waanu qaadan kari laanay waayo gabadhii daraaga dhabti bay noqotay isla markaa haddana ninkii way rabtaa weli ninkeediina wuu rabaa annana waxaanu u jeednaa in gabadha xaaladda ay ku sugan tahay mid gurmad u baahan inay tahay sheekh noo nasteexe ilaahay khayr badan ha ku siiyo sidee baanu yeelaa maxaad nagula talin lahayd faamili ahaan bay gabadhaasi leedahay. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رنهانتي وحالد حنون بدن قلبيغيغنا runtii dhaawac gaarsiisay markii hore hadalka qaybtiisa hore marka uu walaal dareen waday nin ajnabi ah bay guursatay oo nin muslima ajnabi Soomaali ma aha min hada alqabiil laakiin waxa weeye waa muslim alxamdulillah waa wax maxaliya tala laga bixin karay laakiin musiibada ugu weyn iyo darbaaxada ugu weyn iyo khatarta ugu weyn waa inayna gabadhii ninna haynin caruurna haynin nafteedina aynan haynin saddexdaa arrimood ehel aynan haynin gabadhii ehel ma hayso oo awlaad ma hayso oo nin ma hayso oo diinteedii baa khatar ku jirto oo nafteedii ma hayso afar arrimood oo khatar ah oo weliba midda diinta ugu daran tahay ayaa horta meesha ka muuqda horta reerkan waan oga xaqiiqatan waan oga naxayaa xanuunka qof walba muslim ahuna u soo ducee maxaa yeelay waa gabadhaadi oo kale waa walaashaa oo kale waa hooyadaa oo kale waa eedadaa oo kale waa habaryartaas oo kale runtii shucuur adag bay igu beertay arrintaas ayada ah ama talada idin siinayo waxaa weeye ka hor waxaan rabaa intaan idinka tala idin siinin arrintani waxay darsi iyo cashir lama iloobaana u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee in badan ka carara walaalahoodii Soomaaliyeed ma aniga nin Soomaali ah guursanaya jacaylba ma yaqaanaan ragga Soomaaliyeed halkaasay gabdhihii taagan yihiin jacayl ma yaqaanaan raggii Soomaaliyeed anigu nin ajnabi ah baan rabaa horta darsi iyo cashir badan bay u tahay kuwa badanna waanu haynaa oo noocan oo kale ah nin baa intuu gabar Soomaaliyeed naga guursaday ayaanu ku nidhi wuu dilay aad buu u dilaa markaasana war gabadha maxaad u dilaysaa oo maxaan u dili way quraankayba ku taala dumarka in la tumo buu yidhi marka dad fahamku ku wada qaloocan yahay oo laga yaabo islaamnimadoodu inayna si toos halkanagan nin islaamay oo 3 gabdhood oo Soomaaliya guursaday waa kii maalinta dambe jaajuus noqday ee maxalliga muslimiintana laayay waad maqasheen baan u malaynayaa wasaa'il islaamka waad ka maqasheen meeqa intay islaamka soo galaan u soo gala jaajuusnimo meeqa ayaa inay dhaqaalo ku helaan u soo gala kadibna ridoobo islaamka dib ooga noqda arrinkaasi cashir waxay u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee soo joogsada laga waayay horta qofka soo joogsa laga waayay waxaa la yiraahdaa maxaa soo jiifta laga helaa saasay Soomaalidu dhaxdaa horta arrintaasi horta cashir ha u noqotaan rabaa inaan dhaho markoobaad billahi tabaaraka wa tacaala ayadoo qofka muslimka ah haddana muslimnimo lagu guursan karo laakiin war dadkaani xaalkoodu ma taqaanaan Soomaali waa muslimiin
haddaad shalay aragteen mid meelaha Sweden ka hadlayso waan gaalooba dhahaysiyo mid Holland ka hadlaysiyo waan gaalooba dhahaysiyo waxaasi waxa weeyaan waa wax aan la tirinaynin xugun male ummadda Soomaaliyeed waa muslimiin waay hadda ninka Soomaaliyeed guursato hadduu kugu xubaado xataa waa la yaqaanaa mee wuxuu galo iyo wuxuu gudo iyo meeshuu dego min raas Kambooni iyo raas Casayn ama haddii aan reerka u soo noqdo tala ahaan waxaan dhihi lahaa horta gabadhaas aad u badbaadin lahaydeen lug iyo farasba horta u gala soo sasaba saad guriga u keeni lahaydeen ka shaqeeya bar horta carruurba ha la gaaro waxaan ka hadlaya waa nafteeda waayo nin ridoobay bay rabtaa macnaheedu miyay ridowday ayadiina khatar weeye oo ma islaamkii bay ka baxday qof ridoobay oo islaamka ka baxay qofka raba ma ahane waa alkooligo waxa weeyaan ismaba ogo nafteeda in la badbaadiyay u baahan tahay marka gabadhaas si aad yeeshaanba horta si uun u soo sasaba biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ama caafimaad ku soo sasabo dhakhtar baan ku geynaynaa dhaha ama ilmahaagii baan kula raadinaynaa dhaha laakiin mar alla markii ay gacanta idiin soo gasho isku daya in aad meel muslima geyn kartaan dariiqa ugu roon horta waa dariiqa inaad waddan muslim geyn kartaan oo gabadhan diinteeda iyo maxaa la yidhahdaa nafteedaba in la badbaadiyo mudan awlaaday dhashay iska badaaye horta middaa ku talagala biidnillaahi tabaaraka wa tacaala tala kaloon ka bixin karo aniga mas'alada iima muuqatee waxaa ii muuqata inaad ku dadaashaan sidii uun gabadhaasi hooyanimo iyo walaalnimo iyo qaraabanimo iyo mar aynan ay degantaho maskaxdeedu ay joogto awlaadeeda ka soo gala waan kula gurmanaynaa Soomaali oo dhan baa ku gurmanaysa wax lagu soo sasababa gabadhaas sidii ninkaas ridoobay looga soo badbaadin lahaa nafteedana loo badbaadin lahaa ku talagala ilaahna waxaa idinka baryayaa tabaaraka wa tacaala muslimiinta qolka ku jirtana inay aamiin u dhahdaan rajaynayaaye inuu ilaahay qalbigeeda gabadhaa loo soo jeediyo xumaantana uu ka tirtiro awlaadeediina ayagoo nabada uu u soo celiyo tabaaraka wa tacaala ninkana hadduu ilaahay hanuun la doonay ilaahay inuu diinta ku soo celiyo tabaaraka wa tacaala haddii kalena gabadhaa iyo waxay dhashay sharkooda ilaahay inuu ka xijaabo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala innahu waliyu dalika waalqaadiru calayh wajazaakum allah khayra horta reerkan waan ooga xaqiiqatan waan ooga naxayaa xanuunka qof walboo muslim ahuna u soo ducee maxaa yeelay waa gabadhaadi oo kale waa walaashaa oo kale waa hooyadaa oo kale waa eedadaa oo kale waa habaryartaas oo kale runtii shucuur adag bay igu beertay arrintaas ayada ah ama taladaa idin siinayo waxaa weeye ka hor waxaan rabaa intaan idinka tala idin siinin arrintani waxay darsi iyo cashir lama iloobaana u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee in badan ka carara walaalahoodii Soomaaliyeed ma aniga nin Soomaali ah guursanaya jacaylba ma yaqaanaan ragga Soomaaliyeed halkaasay gabdhihii taagan yihiin jacayl ma yaqaanaan raggii Soomaaliyeed anigu nin ajnabi ah baan rabaa horta darsi iyo cashir badan bay u tahay kuwa badanna waanu haynaa oo noocan oo kale ah nin baa intuu gabar Soomaaliyeed naga guursaday ayaanu ku nidhi wuu dilay aad buu u dilaa markaasana war gabadha maxaad u dilaysaa oo maxaan u dili way quraankayba ku taala dumarka in la tumo buu yidhi marka dad fahamku ku wada qalloocan yahay oo laga yaabo islaamnimadoodu inayna si toos halkanagan nin islaamay oo 3 gabdhood oo Soomaali ah guursaday waa kii maalinta dambe jaajuus soo sasaba saad guriga u keeni lahaydeen ka shaqeeya bar horta carruurba ha la gaaro waxaan ka hadlaya waa nafteeda waayo nin ridoobay bay rabtaa macnaheedu miyay ridowday ayadiina khatar weeye oo ma islaamkii bay ka baxday qof ridoobay oo islaamka ka baxay qofka raba ma ahane waa alkooligo waxa weeyaan ismaba ogo nafteeda in la badbaadiyay u baahan tahay marka gabadhaas si aad yeeshaanba horta si uun u soo sasaba biidnillaahi tabaaraka wa tacaala ama caafimaad ku soo sasabo dhakhtar baan ku geynaynaa dhaha ama ilmahaagii baan kula raadinaynaa dhaha laakiin mar alla markii ay gacanta idiin soo gasho isku daya in aad meel muslima geyn kartaan
طريقة أقرون هرتوا طريقة إن الوضع المسلم جين كرتان وقوانا دين تيده إيو محالي لما النفط هذا إلا بدباديا مدن أولاده إذا إسكابة دايه هرتت مدى كتل قلب بإذن الله تبارك وتعالى تلكل وكب حنكره أنا مسألة إمام موقتين وحا إيه موقتا إنها تكد لاشان سيدي أنقبت ناسي هو ينمائيو ولا النمائيو قرابا النمائيو مرأينا أي دقنتو ومسكحني دو أي شوكتو mid gurmadu baahan inay tahay sheekh noo nasteexe ilaahay khayr badan ha ku siiyo sidee baanu yeelaa maxaad nagula talin lahayd saami ahaan bay gabadhaas leedahay الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمهانتي وحالب حنون بدن قلبي جيجنا رمتي داوع جاسيسي markii hore hadalka qaybtiisa hore marka walaal dareen waday nin ajnabi abay guursatay oo nin muslima ajnabi Soomaali ma aha min hada alqabiil laakiin waxa weeye waa muslim alxamdulillah waa wax maxaliya tala laga bixin karay laakiin musiibada ugu weyn iyo darbaaxada ugu weyn iyo khatarta ugu weyn waa inayna gabadhii nin haynin عرور لهينين نفتادين عينين هينين صدح ذا الرموت إهل لعينين هينين قبل إهل ما هيسو أو أولاد ما هيسو أو نين ما هيسو أو دين تريبا خطر كجرتو نفتادين ما هيسو أفر الرموت أو خطر أو وليبا مدى الدين تأغو درمتهاي أي هورتا ماشا كم مغضة نقضي محال المسلمين تلالايي waad maqasheen baan u malaynayaa wasaa'il islaamka waad ka maqasheen meeqa intay islaamka soo galaan u soo gala jaajuusnimo meeqa ayaa inay dhaqaalo ku helaan u soo gala kadibna ridoobo islaamka dib ooga noqda arrinkaasi cashir waxay u tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee soo joogsada laga waayay horta qofka soo joogsa laga waayay waxa la yiraahdaa maxaa soo jiifsa laga helaa saasay Soomaalidu dhaxdaa horta arintaasi horta cashir ha u noqotaan rabaa inaan dhaho markoobaad billahi tabaaraka wa taala ayadoo qofka muslimka ah haddana muslimnimo lagu guursan karo laakiin war dadkaani xaalkoodu ma taqaanaan Soomaali waa muslimiin هذا شرع أركتين مد ملاها سويدا كهالله يسوان قالوا بدايسي مد هولا كهالله يسوان قالوا بدايسي وحاسي وحاويا ووحا لترينين حقن ماله ومدى الصومالي ومسلمين واي هذا ننك الصومالي يقول ستعدوك وحو بضحاكا ولا يقانا موحو قالوا يوحو قدو يميشو دقو من راس كمبوني يراس عصير أما هذه أنريرك أصول نغضو تلاها وحان به لها horta gabadhaas aad u badbaadin lahaydeen lug iyo faras ba horta u gala أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلو ninkii ajnabiga ahaa gabadhii waa la siiyey wayna guursatay rabbina wuxuu ku irsaaqay laba wiil wayna naga guureen oo state-kii aanu joognay state kale ay isla aadeen waxa dhacday ninkii muddo ka bacdi walaashii waanu weynay aabka ay maaragtay u nooshay iyo warhaynteedii midna ninkii muddo markaan naga maqnay anigii oo maaragtay walaashay ku xigay ayaa waalidkay diray markaan ogaanay state-ka ay ku nool yihiin waanu tegay muddaan la soo noolaa walaashay aad iyo aad waxa indhahayga ilmada uga dhamaysay nolosha ay ku nooshay walaashay horta labadii wiil waa laga qaatay markii ay maaragtay iyadii saygeedii ku guuldareysteen inay suucan u korsadaan iyadiina daraaga dhabti buu ka dhigay ninkiina diintii buu ka noqday xaalad adag bay walaashay ku jirtaa oo runtii gurmad u baahan aan uga saarana ilaa hadda anagii go'aan adag waanu qaadan kari laanay waayo gabadhii daraaga dhabti bay noqotay isla markaa haddana ninkii way rabtaa weli ninkeediina wuu rabaa annana waxaanu u jeednaa in gabadha xaaladda ay ku sugan tahay